محمد نبينا بنور هدينا آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العظيم. walaalayaal darsigeennan diiniga oo ka mid a muxaadarooyinkeenna xiriirka ahay waxa uu maanta ku saabsan yahay taxriimu alcuquuq wa qadiicatu raxim. caasinimada waalidka caasi lagu noqdo, qaraabada la gooyo, xaaraannimadkeeda. maxaa yeela intaasu waxay iska leeyihiin xuquuqo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey. wax kastoo xuquuqa oo qofka mukallafkaa ilaahay uu saarana inuu la yimaado ayaa la doonayaa. qofka marka waxaa weeye xuquuqan waxaa laga wadaa waa cuquuqul waalidayn, labadii waalid oo ku dhashay ood caasiso, amase mid ka mid a hadday labadoodii wada joogin. caasi waalideennimadu marka waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn oo kabaa'irta ahay ka mid tahay. marka waxa weeye dembi aad iyo aad u xun oo kabaa'ira weeye. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi: qul licaaqi waalidayhi yacmalu maa yashaa fa ina masiirahu ila annaar walciyaadu billaahi tacaala. waxaad ku tiraa howdhaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam midka caasi waalideynta ah wuxuu doono oo camal ah ha sameeyo, meesha u dambaysa naar lee waayo. marka haddee wax sahla ma ahan waalidkii ku dhalay oo sababul wujuudka koonka kan asagu ahay inaad adduunkan aad timaado inaad caasi ku noqoto. waxa la isfaraayo waxaa weeye birul waalideyn weeye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka meelo badan uu ku sheegay. waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana ayuu dha ilaahay. ilaahay markuu waajib yeelay ama uu amray ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis in la caabudo, ilaahay wuxuu ku xejiyey haddana alle wa bilwaalidayni ixsaana. waa inaad labada waalid ixsaan aad u samaysaan oo baari u noqotaan. haddii masalanba hadda birigaas shareecada laysku faray laga tago maxaa ka imaanaya? dunuub aad iyo aad weyn bay noqonaysaa. haddana aayaddaas markii la sii wado aayaddan kaleentoodoo suuratu nisaa: wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa bilwaalidayni ixsaanan wa bidilqurbaa ayuu dha ilaahay. bal hadda xaqi ilaahay marka la sheego, xaqa allah, xaqa rasuulkaa ku xiga, xaqa waalideyntaa ku xiga, qaraabadii ayaa la sii gelayaa haddane. waxaa yeele raximtu ayaduna xiriirin ayay rabtaa. maxaa yeele nabigeennu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam: alraximu mucallaqatun bilcarshi ou dhahay. raximtu waxay ku xidhan tahay carshiga. taquulu man wasalanii wasalahu llaah waman qadacanii qadacahu llaah. waxay dhahaysaa qofkii i xadhiisho allaha xadhiisho, qofkii i gooyana allaha gooyay leeda. ilaahayna waxau u ballan qaaday xadiis kalentood inuu markaasi qofkii xadhiirsho uu xidhiirinaayo, qofkii gooyana uu goynaayo. qaraabada marka xidhiirinteeda qofkii ilaahay xoola siiyey xoolahaas ayuu ka xidhiirinayaa. xidhiirintaas marka xoola iisa inuu siiyo ma waajibaa mase waa shay oo maaragtay sunno ah oo mustaxsana? a'immada way isku khilaafeen, laakiin sida raajixa a'immada saddexdaa ay qabaan, haddii laga reebo abuu xaniifo, waalideynta mooyaane dadka kaleentood waxsiintiisu waxa weeye waa shay sunno ah, waajib ma aha. marka qofkii aan waxhaysanne inuu qalbiga u wanaajiyo
oo haddou qofkaas ou meel jooga ou soo booqdo ayaa loo baahan yahay qalbigana markaasi ousan ka kahanin oo markaasi saas ousan ka dhibin baa la rabaa. marka hadda sideedaba dadka xuquuqda iskale sida hadda waalidka qaraabada marka la xiriirinaayo waxaa ka horaysa qofkaasu qof alla xiriiriye inuu yahay. qofku markuu xuquuqda ilaahay uu guto ayuu xuquuqda makhluuq u guda karayaa. aayadda hadda aynu ku iftitaaxnay aayad macno waaweyn ay ku jiraan weeye oo wax kasta laga koontarooli karo. waxaa dhici karta in la arko dad markaasi qaraabo ah oo raxim ah oo isku xun oo isdilaaya sida hadda soomaalidan oo kalentood. soomaalidu way isdhamaysaa, way isdishaa, waana qaraabadu wax dhow ma ahan. soomaalidu sideedaba waa wada qaraabo, kulligood waa wada qaraabo. laakiin waxa sababaya inay isgooyaan oo isdilaan maxay tahay? alla ka dheerida weeye. qofku markii ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa uu ka jeesto wax kasta oo xumaana ayaa halkaas u imaanaya. maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala suuratu muxamed ama suuratul qitaal, ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laba aayadood, aayadda 22 iyo aayadda 23 fahal casaytum ma mudantihiinow dha ilaahay, oo laga wado waxaa xaqiiqo ah in tawallaytum haddii aad jeesataan. haddaad jeesataan maxaa laga wadaa? daacada ilaahay markaa ka tagtiin. ilaahay wuxuu leeyahy waxaa xaqiiqo ah. casaada qur-aanka iyo axaadiista xaqiiqaa laga laqbeeyaa. lacalladii iyay ku xukunkaa jirta xagga carabiyada oo litaraji wa tawaquci ma ahan tano. ilaahay wuxuu yidhi waxaa xaqiiqo ah in tawallaytum haddii aad jeesataan, daacada ilaahay aad ka jeesataan, daacatu rasuulillahi aad ka jeesataan, oo camalfalka diinta aad ka tagtaan, an tufsiduu fil arli wdha ilaahay arlada inaad fasahaadinaysiin. qofka waxaa weeye hadduu ilaahay daacadiisa ka tago waxa laga sugaahu waxa weeye fasahaad weeye. qof ilaahay daacadiisa ka tegay ayaa wax wanaajaaya, wax suurtagelaya ma aha. haddii kale haddaad saas tidhaahid waa adigoo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga beenaaya oo kaleentood weeye. bal aayadda u fiirsa marka, waxaa xaqiiqa ah u dhahay allah subxaanahu wa tacaala haddaad jeesataan marka u horaysa an tufsiduu fil arli arlada inaad fasaadinaysaan. arlada waxa lagu fasaadinaa macaasi weeye. qofku waxa weeye waxbuu dilayaa, waxbuu dhacayaa, waxbuu kufsanayaa, waxbuu boobayaa, wax kastuu samaynayaa. khamruu cabayaa, zina ayuu gelayaa. macnaha waxa weeye qofku ilaahay daacadiisa ka taga maba suubanaayo. sababtoo ilaahay wuxuu xaqiijinayaa dadku hadday ilaahay daacadiisa ka tagaan wax faa'iida inaysan keenin. an tufsiduu fil arli wal ilaahi maxaa ku xigsaaya marka arlada haddii aad arlada fasaadaysiinow ilaahi. haddii arlada fasaasha maxaa ku soo xogaysa? wa tuqadicuu arxaamakum ilaahi. haddana waxaad goynaysiin qaraabadiinni, raximkiinni baad goynaysaa. waxa hadda raxim goyntu ay ka timiday oo dadku waxaa weeye dadku waxay leeyihiin dadkan dad walaalaa weeye, maxay isu dilaayaan, maxay isu xasdaayaan, maxay isu dhagraayaan? waasoo dad walaalaa maahan. walaalo waa yihiin oo nasabka waa ka yihiin, laakiin waxa u diiday ilaahay baa sheegay inay maaragtay xuquuqdii oo sharciga ahayd ay ka soo baxaan. ilaahay baa sheegay waxa u diiday. maxaa yeele markay waxa u diiday daacada ilaahay rasuulkiisa ay ka tageen, diinta ilaahay inay ku camal falaan ay ka tageen. mar hadday saas ka tagaanne wax laga rajayhaya ma jiro. kan qaraabadaydii waaye, fulaan waaye, waxay taraysa ma jirto. wiilkayga anugu dhalay weeye, gabadhaydii waaye, waxba kuu tari mayso. dadku hadday alla ka furtaan wax faa'iidaahoy leeyihin ma jirto. an tufsiduu fil arli wal ilaahi wa tuqadicuu arxaamakum. qaraabadiinana waad goynaysaan u dheh. waa hadda macnaha waddankeenna ka dhacaaya waxa weeye qaraabogoynimada oo taalla
waxa weeye qofka xuquuqda ilaahay buu ka tegay marka hore maxaa yeelay xaqa ilaahay asagaa xuquuqdoo dhan ka sarreeya mar haddii waxa weeye ilaahayba uu ka tegayo xiriirka alle uu gooyey cidow xiriir u suubinayo ma jirto isku hallaymaysid qof ilaahay xiriirkiisa gooyey xiriiraan ka yeelanayaa wax suurtagelayo maantaas hadda saas markay yeelaan maxaa haysta marka ulaa'ika aladiina lacanahum ullaahu fa asamahum acma absaarahum u ilaahay shayga hadda waxaan waa iska dhaldhalanayaan qofku markuu ilaahay gooyo daacadiisa arladaanuu fasaadinayaa qaraabaduu goynayaa ilaahay lacnadiisaa ku dhacaysa dhegaha ayuu gabka leeyaho dhegah waxba ka maqli maayo xaq ku dhegaysan maayo quluubta waxa weeye waa beelayaa indhaha xaqa ku arki maayo wax iska laasimaya waaye laakiin aasaas maxaa u ahay ilaahay subxaanahu wa tacaala goynta alle uu gooyey ayaa aasaas u ah markaasuu dhah ilaahay ulaa'ika kuwaas aladiina lacanahumullah waa kuwa ilaahay lacnado naxariisiisa ka dheereeyey maxaa yeele markuu ilaahay daacadiisa ka tegey mufsid ou noqday qaadicu raxim ou noqday malcuun buu noqday ulaa'ika aladiina lacanahumullah kuwaas waa kuwa ilaahay u lacnaday fa asamahum ilaahay subxaanahu wa tacaala sami ayuu ilaahay ku riday ilaahay waa maqal tiray waxa weeye maqalka lagu sheegaayo ma ahan xayawaanku iyo dameeraha iyo fardaha iyo waxa weeye eeyaha iyo khanaasiirtu waxba maqlaaya dhigaha iyo arigu waxba maqlaaya looda asaguna sidaasoo kale wax waa u maqlaa laakiin waxaysan xayawaankaasi ku dheefin wixii xaqa oo la sheego asaguna ku dheefi maayo macnuhu saas weeye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala fa asamahum can simaaci alxaqi weeye xaqa inay dhegaystaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka maqal tiray wa acmaa absaarahum haddana ilaahay basiiradaanu tiray quluubtooda wax gelaya ma jirto saas weeye dadkaas marka waxaa weeye dad dhintay weeye oo dhibaata ay ku dhacday dhibaatadaasaa ku dhacda marka ilaahay wuxuu yidhi fa asamahum wa acmaa absaarahum ilaahay waa maqal tiray ilaahay waa arag tiray ilaahay waa qalbi tiray marka haddaad fiiriso hadda intaasu ciddii ay ku dhacdo adduunyada way soconaysaa ayadoo jasad keligiisa iyo ruux oo markaasi khabiiso ah oo faasidad ah ayay soconaysaa naftaasu walciyaadu billaahi tacaala war marka waxa weeye waa sidaas haddana allah wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala suuratu racdi aayadda markaasi 25 waaladiina yanquluuna cahda allaahi min bacdi miihaaqihi wayaqdacuuna maa amara allaahu bihi an yuusala wayufsiduuna fi lardi ulaa'ika lahum allacnatu walahum suu daariyow dha ilaahay kuwa buraayow dha ilaahay ballanka ilaahay markii alla adkeeye ka bacdi ballanka ilaahay ayay burinaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala min bacdi miihaaqihi markii ilaahay uu sugay ka bacdi maxaa yeele ballanka waa la ysku sugayo caalamu darkine maalintii ilaahay uu dhahaya alastu birabbikum qaaluu balaa ilaahay waa sugay haddana waxa weeye ilaahay wuxuu soo dejiyey rusulow soo diray kutubuu soo diray wixii markaasi waxa weeye qofka takaaliifaya oo la saaray ilaahay halkaas ayuu ku caddeeyey marka wixii ballanka ahaay oo cuhuudda ahay oo la ysku kalifay sida salaadaha iyo soonka iyo xajka iyo cumrada iyo daacada iyo birulwaalideynka iyo kulli waxaanoo dhan kuwa ballanka burinaaya markii ilaahay adkeeyey ka bacdi wayaqdacuuna maa amara allaahu bihi wixii ilaahay oo faray in la xidhiirshane goynaaya hadda waxa ilaahay faray in la xidhiirshay maxay yihiin waxaa ka mid a markaasi waalidkii qaraabadii dadkaas ayaa ka mid a dadkii wanaagsanaay oo saalixiinta ahay in la xidhiirsho wayaqdacuuna maa amara allaahu bihi an yuusala wayufsiduuna fi lardi arrada fasaadinaaya firi hadda qur-aanka waxaa weeye midba mid shayba shaybou kasii ratimaaya arrada wuxuu ku fasaabaya dulmi wa tahyiiju lfitan dulmi ayuu samaynayaa doomanka ilaahay dulminaya fitna u kicinayaa dad buu kicinayaa qabqablo dagaal weeye masalan wayufsiduuna fi lardi arlada fasahaadinaya
ulaa'ika lahum lacnatu kuwaas lacnad ayaa u sugnaatay udha ilaahay naxariista alle oo laga dheeraado ayaa u sugnaatay albucdu min allaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay laga dheeraado waxaa ku xigsaday walahum suu-u daari haddana daar xun ayaa u sugnaatay oo cadaabu jahannamo ayay gelayaan oo caaqibatu dunyaa ayaa amba ka xumaanaysa weeye maxaa yeelay adduunyada ayaa waxaa weeye dadka waxyaabahaas markaasi ku kacaaya waxay u dhow yihiin hadday ilaahayga towbo keenahe ilaahay towbada sharuuddeedii hadduu qofku la yimaado waa la aqbalayaahe inaa waxaa dhici karta ayagoon towbo keenin saacadda ay ku qunto markaas waxaa ku dhacaysa markaasi cirib xun ayaa ku dhacaysa caaqibatu daar ayaa ku dhacaysa cirib xun ayaa ku dhacaysa saasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa iska ratibna marka horta marka ilaahay ballanka ilaahay ayay buriyeen waa sida aayaddaad aynu ka soo baxayno taas waxaa ka dhashay wixii la rabay in la xiriisho ayay gooyeen sida hadda qaraabadii oo kale shay kasta wuxuu manuud uu ku yahay in qofku ilaahay ballanka alla uu hesho maxaa ka mid a marka maaragtay raximkii xataa muwaalaatu lmu'miniin dadka mu'miniinta in la xiriisho waa la ysfaray iyo marka ambiyada dhammaanteedoo la rumeeyo waxaa soo hoosgelaaya jamiicu xuquuqinaas dadka xuquuqdooda oo la ilaalisho xuquuqinaaskina waa ku tumanayaa markay arrintaasu dhacdo arlada ayuu fasaad ugu dhaqaaqayaa dulmi buu ku kacayaa dadkuu dilayaa waxbuu dhacayaa waxbuu kufsanayaa arrintaas laakiin maxay keentay suu-u daaray keentay daar xun oo ah weye ciribtiisu inay naar ay noqoto ayay keenaysaa marka arrintaasu waa arrin aad iyo aad loo baahan yahay in maaragtay looga fiirsado oo qofku waxaa weeye xuquuqda ilaahay waa inuu ilaalishaa rasuulkeenna calayhi salaatu salaam xadiis uu ka wariyey abiibakrata nin la yidhaahdo nufayc ibnu alxaaris waxau dhahay rasuulku waxau dhahay alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'iri kabaa'irta midda ugu waaweyninka badanna warma idiin sheegaa 3 jeer uu nabigu ku celishay qulnaa waxaan dhahna uri yaa balaa yaa rasuulallah ilaahay rasuulkiisa u noo sheeg markaasuu nabigu waxau dhahay al-ishraaku billaah ilaahay oo loo shariig yeelo shirku waxaa weeye markaasi waa akbaru dembi ow acdamu dembi cinda allaahi tacaala waxaa weeye kufriga noocyaashiisa weeye wuxuu nabigu markaas ku xejiyey wa cuquuqu lwaalidayni labada waalidoo lagu caasiyo qofka waalidkiis oo ku caasiyo ama midkood weeye mid haddii lagu caasiyo midka kalena waa lagu caasiyo waa ka laasimaysaa ee waalidka midaan baari u noqonaya midna waa ku caasinaya ma suurtagelayso xoogaa hooyadan baari aabbaha waa caasinaya amba aabbahan baari u noqonaya hooda waan caasinaya laa nabigu marka wa kaana muttaki'an u dhahay nufayc ibnu xaaris nabigu markaas xusulka ayaa dhulka u yiilay oo waa dangiigsanay markaasuu soo fariistay waxyaabaha markaasi kale oo nabigu oo u soo fariistay wax sahlan maaha alaa wa qowlu zuuri alaa wa shahaadatu zuuri u dhaha nabigu waa ayaduna markaasi kabaa'irta ka mid a hadalka beenta ah been oo markaasi waxaa weeye ummadda markaasi lagu dhibaataynayo shahaadatu zuurka waxaan markhaati laga ahayn oo markhaati laga noqdo famaa zaala yukariruhaa u dhaha nabigu waxau dhahay maaragtay saxaabigaan dhihi lahay wuxuu yidhi nabigu inuu ku celcelinaayo kama zuulin ilaa aan ka dhahno uri laytaw sakata allah ilaah shalaytay ow aamuso nabigay u naxariisanaya nabiguna arrintaas ayaa si iscaaj leh ayuu markaas uga hadlayay waxaa kaloo ay ka baqaayeen in nabigu ina xanaago shay markaasi waxaa weeye balaayaa lisaankiisa inay wax ku soo degaan balaaya dadka ku soo degtoo lagu baaba'o meeshaas marka waxaa weeye waxaa kugu soo asxaabtu maa kaanuu calayhi min kasrati aladab adabta markaasi ay lahaayeen iyo nabiga calayhi salam say uga edab qaadan jireen iyo nabiga naxariista ay u qabeen xanaagaas nabigu calayhi salaatu salaam uu xanaagay ayayba ka yaabeenba waxaa kaloo rasuulkeenna calayhi salaatu salaam laga wariyey xadiis cabdullaahi ibnu camr ibnu caas uu wariyey waxau nabiga ka wariyey alkabaa'iru al-ishraaku billaah kabaa'irtu waxaa weye ilaahay loo shariig yeelo wa cuquuqu lwaalidayn labada waalidoo la caasiyo wa qadlu nafsi naftoo la dilo walyamuunu lqamuus dhaarta gelinaysa yamiinulqamuusku waxaa weeye qof baa dhaaranaya dhaar beenahoo ku dhaaranaya isagoo caamida
waxaa yamuunul qamuus loogu magacaabay waxa weeye dembi bay dhex gelinaysaa, dembi hadday dhex gelinaysaa hadhow naartay dhex gelinaysaa.